Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dunidan ay ku noolnahay waxay aragtay masiibooyin dhinacyo badan leh sida dagaallo, xasuuqyo, abaaro iyo xanuuno. Waxayna dhammaantood galaabteen hadba bini'aadamkii ay la kulmayeen. Haddaba daawada, waxaan maanta barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa shakhsiyaad ka mid ah kuwa lagu tiriyo inay dembiyo culculus ka geysteen aadamaha, kuwaasoo ilaa hadda dad la mid ah aanay dunida soo marin. waxaana la sheegaa inay tirada bini'aadam ay naftooda galaabteen ay kor u dhaafayaan 100 milyan oo qof. haddaba daawada, intaynaan guda gelin mawduuceen, fadlan like saar muuqaalka haddii uu ku cajabiyo, sidoo kalena ka mid noqo bahaweynta nagu taxan. mahadsanid. liibol waxa uu ka mid ahaa xukunkii ugu xumaa ee qaaradda Afrika kaga yimaada gumaystigii Yurub, waxaana uu ninkan boqor u ahaa dalka Biljamka sanadihii u dhaxaysa 1835 ilaa 1909. haddaba intuu dalkaas Biljamka xukumayay waxa uu wadankiisa gumaystay dalka Congo ee ku yaala qaaradda Afrika, kaas oo qiyaas ahaan ka weyn 75 jeer dalka Biljamka. waxaana uu boqorkani ahaa mid aad u naxariis daran keliya, waxa uu ku faani jiray awoodiisa, waxaana uu boqorkani la wareegay xukunka Congo sanadkii 1885. isla markiiba waxa uu dalka Congo ka dhisay nidaam adoonsi, taasoo ujeedkiisu ahayd sidii uga faa'iideysan lahaa xoogga dadka iyo kheyraadka ku jira dalkoodaba, waxaana uu canshuur ka qaadi jiray dadka uu adoonsan jiray. haddii aanay bixin canshuurtaana waxay ka goyn jireen gamcahooda, waxayna sidoo kale dab qabadsin jireen tuulooyinka ay degan yihiin. waxayna ciidankiisu dadka reer Congo u geysteen xasuuq daran, iyagoo u kala eegan yar iyo weynba, waxayna dulkooda u adeegsan jireen habab arxan-darnimo, kuwaasoo nolosha ku gubi jiray halka qaar kalena ay ku dil jireen gaajo. waxaana uu isaga iyo ciidankiisu dileen in ka badan 10 milyan oo qof oo reer Congo ah, kuwaasoo ahaa 50% bulshada ku nool dalka Congo. waxaanay taariikhdiisu ka mid tahay midii ugu xumayd ee dal Afrikaana ka dhacda. kaliya intaasi dhibaatada kuma eka, waxaa Congo ka dilaacay xanuun kaasoo galaabtay 400,000 oo reer Congo ah, waxaanay taariikhyahanadu sheegaan inay dhacdadani ka mid tahay mid aan la ilaawi karin. haddaba haddii aad wax kaloo dheeraada ka sii hayso xasuuqii uu geystay boqor liibol, fadlan xagga hoose ee kommentiga noogu reeb. ivan waxa uu ahaa ninka ka talin jiray waddanka Raashiya qarnigii 16aad, waxaana uu ka mid yahay raggii ugu xumaa ee taariikhda soo mara, taasoo ilaa hadda aan erya lagu qeexi karin xumaanta uu ka geystay waddankiisa Raashiya sanadihii uu ka talin jiray, waxaana lagu naanaysaa Ivankii xumaa. haddaba wuxuu Ivan xilka ka dhaxlay aabihii, kaasoo dhintay isagoo 3 sano jir ah, balse xilligaasi laguma wareejin ee waxaa laga saaray boqornimadii. muddo kadib waxaa xilka loo caleemo saaray arooskiisii ugu horreeyay, waxaana uu xilligaasi boqortooyada u maamulayay si horumarsan. muddo kadib waxa uu dhisay ciidan aad u xoog badan oo naxariis daran, waxayna ciidankiisu awood u lahaayeen inay burburiyaan cadowga kasoo horjeeda, iyagoo xilligaasi boqortooyadiisu samaysay dhulballaarsi aad u weyn, waxaana uu dili jiray cid kasta oo xukunkiisa adeec weyda. haddaba waxa uu boqor Ivan dadka u ciqaabi jiray siyaabo kala duwan, waxaana ka mid ahaa habkii argagaxa darnaa ee uu dadka u ciqaabi jiray iyagoo nool inuu dab ku dhex rido. sidoo kalena waxa uu ku ciqaabi jiray dadka biyo karkaraya halkaasi oo ay ku shufbeeli jireen. sidoo kale taariikhyahanadu waxay sheegaan inuu maalin walba dili jiray 500 oo qof ilaa 600 oo qof, waxaana lagu tiriyaa inuu yahay hogaamiyihii ugu xumaa taariikhda ee dalka Raashiya soo mara, uguna cabsida badnaa. waxaana uu dalkaasi xukumayay muddo 37 sano ah, laga soo bilaabo 1547 ilaa 1584. ugu dambeyntiina waxa uu boqorka naxariista daran dhintay isagoo mid ka mid ah saaxiibadii la ciyaaraya ciyaarta loo yaqaano chess-ka amba shaxda. Amelia waxay dhalatay gabadhani 1836, waxaana gabadhani ka mid ahayd dilaayadii ugu khatarsanaa ee waddanka Ingiriiska, waxaana lagu naanaysi jiray baby farmer, waxayna aad u leen jirtay carruurta yaryar. haddaba intii aanay bilaabin dilalka carruurta, waxay ahayd gabadh ka shaqayn jirtay hosbitaal, iyadoo isugu jirtay kalkaaliso iyo umuliso. waxayna bilowday muddo kadib inay samayso guri ay ku xanaanayso carruurta, taasoo ay dadka u baahan in carruurtooda loo xanaaneeyo ay u geen jireen, kana qaadan jirtay lacag. haddaba carruurta ay xanaaneyn jirtay waxay ahayd kuwo ay disho, taasoo ay badanaa carruurta ku dili jirtay gaajo. sidoo kalena waxay u adeegsan jirtay dilkooda si xirfadaysan, iyadoo u adeegsan jirtay carruurta inay sun siiso, waxayna meydkooda geen jirtay meel aan laga soo tixraaci karayn, waxayna dishay ku dhowaad 400 oo carruur ah.
Haddaba, goorma ayaa ay boolisku ogaadeen? Waxaa arrinteeda lagu warhelay kadib markii webi u dhowaa laga helay ilmo yar oo meyd ah, kaasi oo bac ku jira, kana mid ahaa carruurtii ay xanaaneyn jirtay. Sidoo kalena waxay boolisku heleen qaar ka mid ah qalfoofyadii carruurtii ay xanaaneyn jirtay. Ugu dambeyntiina waxaa lagu daldalay gabadhan xabsi ku yaala London sanadkii 1896. Sidoo kale isla waqtigaasi waxay dowladda Ingiriisku soo saartay xeer adag oo ilaalinaya xuquuqda carruurta yaryar. Adolf Hitler waxa uu ku dhashay waddanka Austria-Hungary sanadkii 1889. Markii uu Adolf Hitler yaraa waxa uu ka saaqiday waxbarashadii maxaa yeelay waxa uu 2 jeer ku dhacay macadka farshaxanka ee Vienna. 1913 waxa uu Adolf Hitler u guuray Munich, waxaana uu ku biiray askartii Jarmalka ahayd ee ka qayb qaadatay dagaalkii koowaad ee adduunka. 1919 waxa uu ku biiray xisbiga shaqaalaha ee Naasiga, waxaana uu isku dayay 1923 inuu afgembi dowladeed ku sameeyo dowladdii xilligaasi ka talin jirtay Jarmalka, waxaana uu afgembigaasi noqday mid fashilmay, waxaana Adolf loo taxaabay jeelka, halkaasi oo uu jeel ku qaatay muddo 5 sano ah. Sannado kooban kadib markii uu jeelka ka soo baxay, waxaa dalka Germany ka dhacday doorashadaana waxaa kuraastii ugu badneyd ku guuleystay xisbigiisa shaqaalaha, waxaana uu Adolf xilligaasi noqday hogaamiyihii Jarmalka, waxaana uu hogaaminayay waddanka Jarmalka sanadihii u dhaxaysay 1933 ilaa 1945. Haddaba intii uu dalkaasi ka talin jiray waxa uu Adolf aad u nabcaa ummadda Yuhuudda, waxaana uu geystay waqtigaasi xasuuqii ugu badnaa ee loo geysto dadka Yuhuudda, waxayna taariikhyahanadu sheegaan in nidaamkii kalitalisnimo ee Adolf Hitler uu arkayay ummadda Yuhuudda kuwa dhib ku haya dunida, waxaana sidoo kale ay ku eedayn jireen inay ka dambeeyeen jabkii soo gaadhay waddanka Germany dagaalkii koowaad ee adduunka. waxaana xukuumaddii kalitaliska ahayd samaysay xerooyin caan ah oo ummadda Yuhuudda lagu xasuuqi jiray, sida xerada ku taalla Poland ee Auschwitz. Ku darso intii uu xasuuqaasi dhacayay waxa uu Adolf Hitler jeclaa gabadh Yuhuudiyada, laakiin jacaylkaasi uu qabo gabadhaasi uguma naxariisan ummadda Yuhuudda, waxaana xukuumaddiisa xilligaasi doonayeen inay ka ciribtiraan ummadda Yuhuudda qaaradda Yurub iyagoon u kala reebayn maati iyo xoogba, waxaana uu dili jiray siyaabo kala duwan. Waxa uu qaar ku dili jiray gaajo, qaar kalena waxay ku dhiman jireen tijaabo caafimaad, halka kuwa kalena ay u adeegsan jireen shaqaale ilaa intay ka nafbaxayaan. waxaana xukuumaddii kalitaliska ay xilligaasi dishay 6 milyan oo Yuhuud ah, kuwaasoo ku noolaa Yurub iyo Koonfurta Ameerika. Haddaba haddii aad ku nooshahay waddanka Germany, waa inaad iska ilaalisaa inaad soo hadal qaado Adolf Hitler amba aad muujiso wax ka mid ah astaamihiisii, sababtoo ah hoygaadu wuxuu noqonayaa xabsi. waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. fadlan noogu reeb fikirkaada qaybta hoose ee kommentiga. mahadsanid.